ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaranay Haramcad ee ku sugan magaalada Jowhar ayaa maalmahanba wada howlgalo lagu sugaya amniga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Howlgaladan ayaa waxay habeen iyo maalinba ka sameeyaan gudaha magaalada iyo wadooyinka soo gala magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. Ciidamada Haramcad ee ka howlgala magaalada Jowhar ayaa mar walba u taagan uhiilinta shacabka iyo difaacidda dalka ay kaalin weyn ka qaateen nabadda ay ku naaloonayaan shacabka magaalada Jowhar. xaafadana wax culays ka jiraan xaafadana odayaasha magaalada deegaanka ayaga xoogay dadka dhalinyarada ayaga awaanayaan waxa culays oo dareemeyn oo dhibaato inaka ma jiraan insha Allah taala abni magaalada aad u fiican Xabiib Salaad Xoreyste oo ah taliyaha ciidamada Haramcad ee ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana horkacaya howlgaladan ay mar walba shacabka reer Jowhar ay ka xog wareystaan xaaladooda. Taliyaha ayaana inoo sheegay in dadweynaha iyaga ay wada shaqayn wanaagsan ay ka dhaxaysa ayna la soo xiriiraan shacabka marka ay arkaan wax waliba oo lid ku ah amniga gudaha magaalada Jowhar. shacabka hadii ay sabab kula shaqayneen ama ay sarhaale ka ahayn shaqada ay hayaan ciidamada qaranka wada shaqaynu ma jiris koosadi hawsha aad raadinaysa ee shacabku ay u gadaal mariyaan shaqadu waa yaraanaysa alxamdulillah waana la shaqeeyaan 100% waa ugu mahad celinayna si ay nolol shaqeeyaan sida wanaagsan hadii ay wax dhibaato arkaan ama ay caqabad arkaan nooc kasto ay tahay waana la soo xiriiraan waana rajaynayna anagana waxa waaye markasta ay nala soo xiriiraan iyo hadda ka bacdi si degdeg ah ugu jawaabno ficiladooda iyo waxay nala soo wadaagaan inta taliyaha ayaa sidoo kale inoo sheegay in howlgaladan ay kaga hortagayaan falalka amni darro keeni kara horta marka ugu horeeyda ma ahan howlgalka marka ugu horeysan sameeyno anaga war kasta howlgalkan waa sameeynaa adduunku baa caawin la soo kulmay laakiin shaqadan waxa waaye shaqo markasta aan haynay waana waajibaadna saaran waxa waaye ama aan ka daalno ama aan ka nasono midna maahan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogan anaga waxa waaye waxaan diyaar u nahay inaan u shaqeyno qaranka iyo dawladda intaba hadii waxa waaye waa dareemaysaa adiga laftirkaadu in Hirshabelle hadii aad joogtay waqtiyadii aan howlgalada bilaabeynay iyo maanta waxa waaye marxaladda ay kala joogto waa dareemi kartaa marka waxaan leenahay nabad ku seexda nabad ku soo kaca insha Allah hadii Ilaahaymo howlgalkan waxa loo gal lahay in lagu xaqiijiyo amniga lagu baaro nabadiidka laga hortago dhibaatooyinka dadka wax yeelaya ama dhibaateeya shacabka nooc kasto yihiin sidoo kale dadka maandooriyaasha isticmaala oo qamrooyinka iyo waxa waaye daroogada xashiishka nooca loo yaqaan iyo waxyaabahaas isticmaala oo ayagu maankooda uu maqan yahay dadka wax yeelaya haday toorey tahay haday qori tahay dhibaato kasta marka nabad diidku nooc kasta oo noqdo ama qof wax yeelayo ama mid amniga aan qatar ku ah noqdo waxa waaye qaabkaas ayaa howlgalka nagu markasta ku saabsan yahay waana waxa aanu abuurana waxaan u dirayaa shacabka ciidamadan waa ciidamadiinii har iyo habeen waxay diyaar u yihiin inay ciidan shaqeeyaan adinka waxa ay diriiska u wataan ay u labisan yihiin har iyo habeen oo iska dhiino waa daraadiin inay nabadiina ilaahay ayaa gacay kafaale qaadi kara laakiin ka sokow in ilaahay macnaha oo ayaga sabab u dhigo inay diyaar u noqdaan inay difaacaan koor inta adinku waxdan gaari ciidamadan Haramcad ayaa marar badan ka shaqeeyay adkeynta deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka